waxaa laga yaabaa inaa wax nacdaan oo kheyr idinkugu jiro, sidoo kale waxaa laga yaabaa inaa wax jeclaataan oo shar idin yahayne. ilaahay ayaa og, laakiin idinkama ogidin. xayawaanada yaa sheekh, aniga waxaan qabaa su'aal. halkan ma ahan meel caruurta loogu talagalay, laakiin dhib ma lahan. soo daa su-aasha aa qabtid waa kaaga jawaabaya. cunugan dhibkiisa aqaana ilaahu khayr ku hadlaa. sheekhow, ilaahay ma awoodaa inuu sameeyo wax kasta uu doono? haa, wuu awoodaa. ma awoodiyaa inuu bedelo wax jiro, sida inuu habeenka maalin ka dhigo? haa, dhab ahaantii, laakiin maxaa ii weydiinaysaane? waa hadalka caruurta. sheekhow, 2 lagu daro 2 waa imisa? dadka dhan ayaa yaqaano. marka aniga waxaa cunugariis mana aqaani. waxa uu la mid yahay 4. marka haddii ilaahay uu qadaro ma laga yaabaa inay noqoto 5. ajal. markaas wuu awoodaa inuu muslimka ka dhiga gaal, gaalkan uu ka dhiga muslim. ya allah. haa wiilkaygiyo, taasi shaki kuma jiro. marka haddii wax kasta ay gacantiisa ku jiraan oo anugana aan lahayn doorasho iyo xorriyad, kan faasiqa ah iyo kan alle caabudo labadooda iraadada alle ayay hoos joogaan, meesha maxaa iskugu imaateen? markaas wax kastoo isku sheegaysaan oo jihaad ah oo camal ah waxay noqonaysaa bilaa macna. marka aniga su-aasheedu waxay tahay, miyaysan wanaagsaneyn alle inaa u dhiibano acmaasheena? laakiin waxaa ii sheegtaa wiilkaygiyo, jaahilkay oo faasidkay ayaa ku bara fikirkan. marka anigu manihin kuwa ikhtiyaar leh, alle wuxuusan noo qorin mana dhacay mana samayn karno. ii qabta wiilkan, wuxuu xabaarsan yahay afkaarta shaydaanka iyo fikirkiisa. qabta wiilkan. soo idin leeyahay idinka commenting kusoo qor su-aalihiisa mis weydiisan weli. mida kale, xertii oo dhan ayaa bursatay hal mar. hal qofka ma aharin xerta se shiiq u aaminsan yihiin oo keliya. marka shiiqa balaaqadiisa maa yareed ma ogi, oo cunug inuu su-aashiisa ugu jawaabay ayay ahayd. yaa jeclaa lahayd inuu muuqaalkan kula daawado? fadlan u dir qofka aad jeceshahay. waana mahadsantihiin, siina sheergareeya. waana qiso dhab ah oo dhacday, waxayna dhacday wax yar ka hor intaysan tartaarka soo weerarin muslimiinta.